محمد بن سلمان مسكين كاس يركع اللي لا يابيه يا nin saxafi oo caalami oo wargeysyada wax ku qoro oo khatar ah yaa wuxuu yiri sijil ilhaaribin inuu ku qoro dabcay hariba qonsuliyada soo gal qonsuliyadii uu galay inuu galay baa u dambeysay waxa ninkan uu soo galay xagee la geeyay markaas ay dhameeyay waxoogaa la joogay uu naga tagay aw haduu idin ka tagay xagoo maray maxaa loo arki waayay markaas dadana waxay dhameeyay su'aalo in la weydiiyo la rabo su'aali markii la weydiinay oo kisto su'aalaha isku yara adkeeyay wiil marka ku su'aalaha weydiinay kamid ah ku xanaaqayo dhuuntu qabtayo markuu dhuunta qabtay kadib odayna wuu ahaa wuu caburay saas daraadeed wuu dhintay waayaha wuu dhintay away meydkiisa haduu dhintay maya meydkiisi waa sidii maxay ahayd kuwii oo nabi yuusuf la dhashay soo qamiis intay soo qaadeen dhiig marmariyeen yay u keeneen odayga waxay dhaheen yuusuf waraaba cunay qamiiskiisina waa ka dhiigiisa bal fiiri markaas wuxuu dhiigin soo fiiri wuxuu waxaan la yaabanahay waraabaha wiilkayga cunay dulqaad badnidiisa la yaabanahay wiilkiina wuu cunay shaatigiina meel ka muuna jeexin seebu uga siibay waan la yaabanahay haduu waraabaha cunay muxuu goosan way qamiiskan muxuu dhinac uga goosan way gacmo muu qaba waraabo tartiib muu uga siibay nabi yuusuf qamiiska maya marka qamiiska sidii oo kale ku sameeyeen saxafigi maya waa la ceejiyay ma awmeedkiis aaway lama hayo xagee la geeyay ilaa hadda wixii dhan waa la hayaa waxay ku noqotay marka arrin la yaab leh haday moodayaan Sacuudiga inay saan wax ku noqonayaan ninkaas ma isku taabteen laakiin moogtay Soomaaliya waxay yiraahdeen meeshu Ilaahay wax ka wado dameera weyle ka dhala dameer iyo weel isma le moogtay meeshu Ilaahay wax ka wado hadda ninkaas maxaa meesha keenay waxa la yiri gabar uu rabo inuu guursado warqad fasax ah in loo qoro ayuu Mareykanka uga yimid safaarad Mareykanka kuma taalamiya meeshu joogay meeshaas intuu tawaayay warqadaas aan rabaa in la ii qoro ilaa tan Turkigu loo qori kartaa tan Mareykanku loo qori kartaa maxaa loola soo doontay tan Turkiga gaalada aqal xumidooda waxay la soo dooneen waxay leeyihiin waxay rabeen Turkiga inay ku ceebeeyaan oo dhahaan nabadgelyo kama jirto Turkiga saxafiyiintii waa kaas waa lagu dilay laakiin Turkiga ma yaqaanaan Turkiga waa dad ilbaxa oo xadaaro hore way ku dabagadiyeen markaas waxay ku noqotay in qalaba sixru ala saaxiri sixir nin oo saaxira wuxuu sameeyay inuu dadka sixiro asaga la beesay sixirad asaga in qalaba sixru ala saaxira la yiraahdo way ku dabagadoontii marka maanta waxay taagan yihiin Sacuudiyaanku Turkida inay iska babariyaan oo dhahan walaalayaalow xaaladu si kastoo ahaato wax kastaan idin siinayna lacagaha Mareykanka siinay ka badan idin siinayna qadiyada naga soo afjara Turkiguna uu leeyahay arintaas ayada hatta waxay yiraahdeen talmiix waxay u sameeyeen Sacuudigu soo qadar mayna go'doominin oo qadar mayna hareeraynin oo يعني مدة ما يندبين وحيت المحنة وحيلين حتى قدر وان له هشينينا أو وان كقاعدنا عنا قبضتين تعادي عن كذا أهرنت اللي مرة من نجا مسين كرتان أو واحد لعكته وان مركز سوحور بحال سوقها سو قدر كالله قدر إنك سوي وإحنا قلنا دحيان على أساس وكلها لكن بقالها ودن كاسو لسه هاي شنطة سنة أساس عتنا بقالها كسي حقوين أيها الله قف وقت ويسدي مركز سماه حدري بيكون marka hore wuxuu lahaa intii la xisaaro oo cuna qabatay qadar ayay wuxuu dhan waatiyada aan sheegayno oo kale turku marka wuxuu yiraahdeen haadi rishwatun siyaasiya laaluush siyaasadeed anagu ma qaadano arrinta waan baaraynaa nala shaqeeya xaqiiqada aan ka kortagno kuwii dilay ee junaada waa la yaqaana kuwan waliba arrintu ma aha kuwan dilay ee la soo diray ma aha sheekadu moogtay nin askari oo la diray wax soo sameeyay la yiri kii soo diray inaad u jeedid waa intii af meegaan dhijirin hadda koor libaax intuu neef ka qaaday yu xaga iskala fariistay libaaxi ma bacarraayo libaax neefkiisu iska cunaaya kii neefka iska lahaa libaaxi oo neefka cunaayo arkay waa agtaagan u jeeda intuu ka sii jeestay ma fiirin kare yuu dad xagga maray wuxuu ku yiri libaaxi neefka iga qaaday raadkiisi ma aragteen way arkaana dasna waa arkaa libaaxi ma aragteen way u jawaabeen marka waxay yiraahdeen libeeka waa aragayte santis may ku weydiyaas libaaxa kan uu fadhiya neefku uu cunayaa raadkiisii ya arkay iyo xaquu ka baxay marka sheekadu halkaas ay joogtaa marka adduunkan Ilaahay baa iska leh